noo ahaa masaariif aanu ku noolahayn xoolaha iyo dalka oo xooluhu dalka ku nool yihiin xoolihii mar horay waxa uu heshay abaar haddana waxa heshay saddexdaas sano waxa ku soconaysay dhuxul iyo burgoyn iyo dayac dhulka lagu sameeyay dhulka hadda eriyada inaanu guurno oo abaar u guurno baan diyaaruna qofka baayac mustarigiisa hadii loogu jeedo oo la yiraahdo waa baayac mustari hebel baa wax ka helay waddanka tagay waxa weeye markii aanu gaan cayroobo xoolihiiga dhamaada baayac mustari waayo lacag waayo xoolo waayo dal waayo deegaanka haysata dhirtii oo qoyan ayaa dab la suraa sida jilada qoran kadib marka dabkaas gudo ayaa la googooyaa qaabkan ayaa loo qaabayaa marka qoriga la taago waxay ku daboolaan burka koobta ku yaal baa la soo fujiyaa waa lagu daboolaa kadibna waxaa la dul saaraa ciidda fertilizer oo ah ciidda dhulka wax ka baxaan baa la gooyaa dusha laga saaraa qodaxdii ka hartay geedka laga gooyay waxay ku hartaa koobta dhexdeeda tan oo keenta in xooluhu soo gali waayaan koobta dhexdeeda oo ay daaqi kari waayaan ishiina idin macallina daydirtu sida geedi ugu fadhido geeli waa wada ragaaday halkan uu farfadhiyaa waxaan ku yiraahdaa arigi waa wada ragaaday waa wada fadhiyaa geedihii way ku jiiftaa koobtii oo indhihiina idin macallina markay dawladina dee waa ogtiin oo adduunku fooda weeye noloshayadii bay baabi'iyeen dunyadiina way naga luntay oo dalkii iyo dalkii ay gubeen iyo koobtii ay gubeen baa dunyadii raacday waxa noo harsan keliya qorag iyo qarxa waanu isku dhacno waxaan ugu kalifay waddanku shaqo male waa baagamuudo marka waxa weeye magaalada looma taagnaan karo dadka inaad bilaqaysato iyo inaad dhulkaaga jireefato jireef weeye waa ka badoo kale baanu kala dooran dan baanu moodnay marka inaanu dhirtadeeda diiranno marka taasaan ugu kalifay nin walba waa saaxiib ciyaalo laba xaas baanu leenahay oo cid u xil qabtaa ma jiro haadnina ma soo gaadho dhaqaale ma helo xoogaa haddii oday ama mid ka soo qaato namaba soo gaadho waa waxna jeebkiisa baashayada wax yar iyo wax badan aanu ka helay iyadoo baanu naf bidnaa kulliiba intaanu nin daba jooglaan binu aadan ama waxiisa baaran lahayn ku dilay mooriyaan noqon lahayn marka taasaan ugu kaliftay wax laakiin qadar oo aanu ka helo ama natiijo lagaga kaaftoomi karo mar labaad laga tii karo male waa maalin dagaal xoolaha dadka ku noolaa dadkuna wuxuu ku noolaa xoolaha dalka xooluhuna waxay ku noolaan daaqa har ha noqoto caleen ha noqoto caws ha noqoto intii waa la shiday haddii la shiday dadka la shiday waa dad isticmaalaya awood xoog bay isticmaalayaan okay awooddaa isticmaalayaan mid dhawaysa iyo mid xigta midna uma hayo oo boodda tuulada iyo deegaanka ka tirsan oo ah reer miyiga midna wax kama qaban karo waxa israaca dhulka dhirta koobta kadib waxa raacay xoolihii waxa daba jooga hadda dadkii dhibaatada baashana waa la ogyahay inay baasha tahay
waxyaalaha la karahsaday taana waa loo baahan yahay dee in wax laga qabto dibna waa nagu haysaa haddaan xoolo dhaqatanahay dhirtii oo dhan dalkii iyo baaba'ay xoolihii ku guftay dhibaatadaas oo dhan baa ka muuqata geedkii mar waa xooluhu waa harsan jireen mar waa geedku waa harsan jireen xoolaha waa ku dhaqnaayeen geedkii marna dhulku uu yaalo kobti dalal baa laga dhigay waa guulaha xooluhu wax ka cunaan bay waayeen dhibaatooyinka dalka ka jira awood daro ayaa naga haysata waxaanu ka qaban karaana ma jiraanin marar aanu isku daynay oo badan baa jira marka aanu isku daynay dhibo badan ayaana soo kala gaaray dad shicibahoo dee dadkii isdhex galay oo ama qololna leedahay laga baxo dalka iyo nin doonayo inuu dalka gubo dalgubka markaanu annagu isnaan wax ka qabta wax badan dhibaa kaa iska soo gaara dad baanu iska laynaa dabadeed waxaanu uga badin weynaa dee inaanu gortaa waryaynaan dee innagu marka islayne inaan iska dayno ile awoodaynu waan dawlad ma hayno waxay noo qaban karaya ma jiro xoog aynu adduunka iskaga qabanno ma hayno waa naloo xoog sheegtay quwad baa naloo sheegtay reer guuraha haddaanu ahayn gaadiidka waa naga dhammaaday xoolii waa naga yaraadeen askun dee iska laa ilaaha illallah ah oo waxaanu qalanno iyo waxaanu maalaan waxba noo qaban karin baa nooga jooga sida aanu bushashka u degnay oo aanu sidee isaga soo durugsannay waa naga dhab oo nalala qabto cadowgaas dhulka shidaya ilaa yow keliya ma leh dadweynaa wadaaga soomaali baa wadaagta dhuxulaysatada waa niman ku talagalay inay qaadaaneen xatooyo dadweyne waxa ay sitaaneen army hub bay sitaaneen waxa weeye waxay wataaneen dad ay soo kireysteen oo camal muqaawil oo kala oo aan u dhalan mandaqada ama deegaanka aan ahayn oo awr kiraalayaal ah oo ay u adeegsadaan deegaanka waxay ugu sheekayaan waxaanu idin siinaynaa lacag waana siiyaan annaga dee sida ay nala tahay hubka staff iyaga ilaaliya iyo waxa weeye nugucu isku sitaa badiil qoray iyo faas qofku isaga binaadamka ilaahay isaga uu abuuray risq buu leeyahay qofku haddii uu risqiisa sidaada geed baad ka helaysaa geedkaa ku noolow dee waddankana dhaawac buu geysanaya ma fahantaad waddanka dhaawac buu geysanaya isagana risqiisii geed baa alla ka saaray annagu waxaan nahay dadkii abaarihii ay xoolaha kala tagay mana shidno baashaa nagama burburro kuwa shida iyo kuwa gobollada u shaqeeya kuwa heedaa ka shaqeeya risq allah la cunaa waana ka xunnay xaalufka dhulka ku dhacay markaan runka hadalno marka qofka baayac mustarigiisa haddii loogu jeedo oo la yidhaahdo waa baayac mustari hebel baa wax ka helaya dee waddankaa tegaya xal waxa lagu heli karaa xal dad nasr rabiyo iska soo diga ama maamul la helo oo shaqo ah xal uun shaqo ah baa laga kaaftoomi karaa maadaama baahi waxa keenta shaqo la'aan marka kaaftoonka uu laga kaaftoomi karaa waana aragnaa dhibaato waddanka gaaraysa waddankayagii laakiin markii baahi timaado dee waxa weeye xal kaloo kuu bannaaniba nin qatani nabad sugidduba kama qarsato sir dadkii baa batay qaabka la idin qorayaa joojiya baash wariyaa juungalo wax ma kuu sheega wariyaa juungalo wax ma kuu sheega juungalo jooji wax ma kuu sheega aniga wiilashaadi waash juungalo jooji xaynka wadaynaga juungalo jooji dhuxush hadi wax nama siiso war juungalo jooji juungalo jooji goobta wadaba jeebka ku shubo wallahi billahi ilaahi ya rasuulka maxamed ka candha saddex cadaan isku soo xiranaya iyo saddex goos ayaa ku riday dema labadeenu ma dhimano hadana soo qabta lagu daalsa lagu goortaas way waa la joojinaya labadeenu ma dhimano iyo adiga xolkaaga waxaan rabaa inaad adiguna imariso anaa dawr mariyo arigaas burkaan oo guranaya dhinacaga ka daa dee sida u guranaysaa maxaa baahida ii geysay gubtay oo laamayo ku leeyahay
muhiim weeye dhirta horta waa waxyaabaha lagu nool yahay oo nolosha bini aadanka uu ku dhisan yahay dhuxul ahaan marka loo isticmaalo dhuxushii lagama maarmi karo Soomaaliya waxa weeye male wax kale oo ay u adeegsan karto xagga isticmaalka dabka marka in la controlo oo yani ma aha si kale horta in la joojiyo waxaan qabaa inaanay ahayn arrin muhiim ah marka waxa weeye dhuxushu waa nolosha koobaad oo bini aadanku uu ku nool yahay dadka shacabka